السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawaneysaan ku soo dhawaada barnaamijka soo galayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 2025 barnaamij oo gudbin doona macluumaadka iyo wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn haddaba qodobada barnaamijka caawa aan idinku soo gudbinayo waxa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan oo kulan la qaatay mas'uuliyiin ka socotay ururka Hamas arrin muhiim ah ay ka wada hadleen tafaasiisha warkaas waan idin hayaa wasiirka maaliyadda Israa'iil Smotrich oo hadal si weyn uga careysiiyay dadka Yuhuudda ah sheegay kuna saabsan maxaabiista Gaza lagu haysto ee Yuhuudda ah dhanka kale waxaan idin hayaa warbixin xiiso leh oo ku saabsan Xuutiyiinta oo ku hanjabay inay weerari doonaan shirkadaha Mareykanka ee ka shaqeynaya shidaalka ee gobolka Bariga Dhexe taasoo sheekadii ka socotay arintii ka taagneed badda cas bensiinka ku sii shiday sida la leeyahay iyo Xuutiga oo maanta wacdaro kale ka geystay badda cas iyo gudaha Israa'iil tafaasiil ku saabsan arinta waan idin hayaa waxa soo kale qaybta dambe barnaamijkan idinku soo gudbin doona Israa'iil oo isku dayday inay khalkhal geliso diyaaradaha dagaalka casriga ee Shiinaha kuwaas oo dhoolatus la sameeyay kuwa Masaarida iyagoo ku soo dhawaaday xuduudka Masar iyo Israa'iil haddaba sidee wax u dhaceen Shiinuhu se jawaabta adag uu siiyay Israa'iil maxay ahayd sheeko la yaab leh ayaan qaybta dambe ayana barnaamijka ku faahfaahin doona inta aan ku jirno hadii warar cusub ay soo kordhaan waan idin la socodsiin kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo haddaba waxaynu ku bilaabaynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa kulan la qaatay wafdi Hamas ka socda oo maalmahan ku sugnaa wadanka Turkiga wafdigan hore waxay ula soo kulmeen taliyaha hay'adda sirdoonka ee wadanka Turkiga ay aad u soo dhaweeyeen ayay sheegeen inay dhankooda culays ka saari doonaan dhanka iyo Donald Trump oo markaa ay ku dadaali doonaan in wax uun laga hirgeliyo qorshaas inkastoo Netanyahu iyo kooxdiisu ay hore u diideen in markaa arrinkaasi ay aqbalayaan qodobka kale ee barnaamijkeena caawa aan ku soo gudbinayno waxa uu yahay wasiirka maaliyadda ee Israa'iil ninka la yiraahdo Smotrich ayaa war la yaab la sii daayay wuxuu sheegay dadka maxaabiista ee Yuhuudda ee lagu haysto Gaza arintooda inaanay waxba uga jirin isaga wax shaqo oo muhiim ah oo ay noo tahay malweyn uga careysiiyay shacabka Israa'iil gaar ahaan qoysaska iyo dadka ka soo horjeeda siyaasadda lagu dayacayo maxaabiista dadkaas waxa meesha ka bilowday qaylo iyo muran kadib warbaahintii waxay bilowday inay ninka weerar ku qaadaan oo ay yiraahdaan ninkan maartay ma u qalmo wasiir isaga iyo qolooyinka kale waa kaas haddana war kale soo saaray markii doodaasu ay socotay kadib wuxuu leeyahay waaba iscasili doonaa haddii waxa aan rabo aan laga hirgelin Gaza maxay tahay in la laba jibaaro dagaalka iyo duqeymaha hadda socda waxba lagu ma jeedo waa in la xoojiyaa inta in ka badan bambooyin ka badan lala dhacaa warninku waa nin nooca waa yiraahdeen warninku maxaa ka qaldan marka ninka waa nin marka waxay yiraahdeen qaar ka mid ah qolyaha mucaaradku ninkan xoogaa maskaxiyan xataa waa nimankan dawladda ku jira Netanyahu waxay yiraahdeen dad fayooba ma sababtoo nin weyn wuxuu ku hadlay dadka maxaabiista meesha lagu haystay wax naga galay male markuu leeyahay dadku soo anagu Yahuudi ma soo Israa'iiliyiin ma soo xaq u malaha inay dawladdu ka shaqeyso dadka la sii daayo haddana markii buuq lagu furay oo idaacadihii laga aflagaadiyay haddana muxuu leeyahay waa iscasilayaa haddaanu Netanyahu samayn waxa aan rabno Netanyahu marka xoog ku haysaan isaga ninka la yiraahdo Ben Gvir dhanka kale Ben Gvirna maanta ayuu isaguna safarkiisii ugu horeeyay Mareykanka ku tagay markaas qolooyinkii diidanaa dagaalka Gaza ay wuxuu dhanactay isu ballansadeen qaar way ka hortageen qaarna hadday u ballansan yihiin markaas ay rabaan inay mudaharaadyo waaweyn ku harqiyaan oo ay kaga soo horjeedaan ninkaas qodobka isaguna halkaas ayaynu kaga gudbaynaa sheekada kale ee caawa barnaamijyadeena aynu ku soo qaadanayno waxa ka mid ah nimankii Xuutiyiinta maanta waxay dhigeen wacdaro
hanjabaad kalena hawaday mariyeen. marka hore waxaan ku hormaraynaa wacdaraha ay dhigeen. maanta waxay yidhaahdeen waxaynu weerarnay magaalooyinka Casqalaan iyo Eilat, labada magaalo ayaynu weerarnay yidhaahdeen. waxaanu ku weerarnay diyaarado drone ah iyo gantaalo ayaanu ku weerarnay. marka intaa waxay yidhaahdeen hawshaasu siday aan ugu talagalnay ayay u dhacday. wuxuu sidoo kale afhayeenka Xuutiyiintu sheegay inay weeraro kale ka fuliyeen badda cas iyo badda Carabta, badda la yiraahdo Bahrul Arab. labada waxaynu weerarno dhahay labada markab ee diyaaradaha xambaara iyo maraakiibta la socota ayaan iyaguna gantaalo iyo drones inta u cabaysanay ayaanu dhagaha ka garaacnay. intaba wuxuu yidhi howlgallada siday tahay ayaynu maaragtay u fulinay oo ilaahay fadligiis sidii aan rabnay ayay noogu dhammaadeen. intaa marka waa shaqadii iyo adeegashadii iyo wixii ay nagta ka saareen. laakiin arrin la yaab leh ayay ku dareen oo argagax gelisay Mareykanka kaliya ma ahane khaliijkii oo dhan. caawa hurdo ma jirto, indhaha taagan. maxay yiraahdeen? waxay leeyihiin Xuutigu shirkadaha Mareykanka ee shidaalka ka shaqeeya waa noo bartilmaameed iyo masaalixda Mareykanka ee gobolka. masaalixda Mareykanka maxay tahay? waa danaha Mareykanka ee gobolka iyo shirkadaha shidaalka iyo waxa kan meesha ka shaqeeya kulli waa noo bartilmaameed. war annaga war arag nimankii khaliijka marka maxay leeyihiin? war nimankii oo nagu soo socdaan seel yeelaan. awalna digniino hore qabeen Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo ay qabeen. haddana digniinahan Mareykanka meel kasta uu joogaa ugu tagaynaa ay leeyihiin nimankii. waxay soo kale Xuutigu sheegeen boqolkiiba hal inay gaartay khasaaro awoodooda marka loo eego inta weerar ee Mareykanka uu ka geystay Yemen. waxay yiraahdeen annagu waxay maalinka rabno inaan adeegano sida taa u adeeganayna. Mareykanka waato dhan duqeyntiis waxba naga macunayso. laakiin sheekada la yaab kale oo hadda khalkhalka badan keentay waxay tahay inay u hanjabeen shirkadaha Mareykanka ee shidaalka ka shaqeeya iyo masaalixda Mareykanka ee gobolka. xagee yaalaan marka khaliijka yaalaan? wadamada khaliijka markaas u jareynayaan. nimankan Xuutigaana waxba nagama qaadi kartaan lama dhigo. niman Israa'iil waxaa aragtay nagta ka saaray Mareykanka aragteen oo nimanka waa ilaaliyaan dhahay khaliijka maraakiibtiisa nagta ka saaray. nimankan marka gantaalahooda iyo waxooda iyo droniskooda iyo hadday soo fasaxaan way ogyihiin. marka khaliijkii hadda marka waa qaylinayaan. waxaa leeyahay Iiraan xaggeedaasaa wada hadallo ka socdaanoo la leeyahay war nimankan Xuutiga naga qabooji. Xuutiguna baashu wuxuu leeyahay Mareykan annagii markabkan meesha yaala kaliya ma ahane masaalixdiisa weeraraya, sababtoo isaguba masaalixdeenu weeraraya, dadkeenu laynaya, meel kastuu garaacaya. marka hawsha halkaasay maraysaa. qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa sheeko cajiiba oo ku saabsan Shiinaha iyo Israa'iil oo isu hanjabay. sheeko yaab laha dhacday marka laga hadlayo dhoolatuskii dhawaan Masar iyo Shiinuhu ay wada sameynayeen oo Israa'iil ay isku dayday inay Shiinaha isku taataabato. haddaba sheekadaas waan idin soo wadaa qadar xayisiisa kadib.